gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Burco ayaa ka hadlay qodobo door oo ka mid ah safarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay gobolada bariga Soomaaliland. ugu horeynba gudoomiyaha Maxamuud Xasan Saleebaan Doob waxa uu ka hadlay ballanqaadyo kala duwan oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ballan qaaday waqtigii uu ku jiray ololaha doorashooyinka Soomaaliland, isla markaana gudoomiye Doob sheegay inay ballanqaadadaasi noqdeen kuwa ay ku fashilantay xukuumadda Soomaaliland. inuu airportkii Burco maxay ay toy ee uu waliba isagoo musharaxa intuu isdhex taagay ballan qaaday inuu sido wuxuu miisaaniyadda ugu daray oo yiraahdo halkaas uu maraya. waxa la filayay wadada Burco iyo Hargeysa isku xidha oo xukuumadda horena ka qayb qaadatay inuu madaxweynuhu isaguna uu sheego waxa uu ka qabanayo. waxa la filayay oo mashaariicda looga fadhiyay ahaa wadada magaalada la yiraahdo Waraabeeye iyo Burco isku xidha oo looga 2017kii in sanduuqa horumarinta Soomaaliland uu bixiyay oo la soo mariyay wasaaradda xanaanada xoolaha sarfeygeedina la qaaday waa laga sugayay oo gobolka ayaa lahaa. mashaariicda gobolka laga sugayay waxa kamid ahaa bangiga adduunku dhaamamka inoo maalgelinaya laga soo bilaabo reedab khaatimo iyo ilaa ay lagu joojiyo Shangalle inta u dhaxaysa mashaariic bay ahaayeen gobolkan Togdheer uu lahaa oo laga sugayay madaxweynaha halkii mashaariic laga sugayay wuxuu la yimi kala fiqin iyo handaraabkii baan qoful ku sii daray oo si runtii aad iyo aad kelmadaan uga naxnay. madaxweyne qaran oo yiraahdo wax baan handaraabay qoful la waliba waan ku sii daray. madaxweynaha waxa laga rabay inuu miftaax noqdo khayrka fura dhaqaalaha fura horumarka fura barwaaqada fura baa laga doonayay madaxweynenimo laakiin lagama rabin handaraab iyo qoful lagama rabin. aad iyo aad bantaan uga xunahay haddana xisbiga mucaaradka. gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay isla markaana dhaliilay safarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku maray gobolada bariga Soomaaliland. runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xaq baa loogu lahaa inuu soo booqdo gobolada dalka wuu sameeyay oo booqashadii wuu sameeyay laakiin kuma faraxsanin sida uu safarka madaxweynuhu u dhacay. madaxweynaha waxa laga doonayay safarkiisa waxa lagu sheegay kuurgal ama xoogagaalo noqosho. marka la leeyahay kuurgal iyo xoogagaalo noqosho waa inuu ogaadaa baahiyaha dadkiisu qabo shaqooyinka ka soconaya gobolada. madaxweynuhu taa bedelkeeda wuxuu sameeyay inuu sameeyo in la soo dhaweeyo oo kharash fara badan la geliyo oo meel loo xidhxidho oo madal maxay ay tahay lagu soo dhaweeyo la sameeyo halkuu kuurgal sameyn lahaa. qodobka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loo baahnaa dhumay kala baydh dharkayn geeyo xaq buu lahaa madaxweynuhu inuu soo booqdo. madaxweynuhu nin daad qaaday buu sawir la galayay Hargeysa war dadka reer dhumay meel Soomaaliland ka mid ahayn ee agoomoobay muxuu madaxweynuhu ugu tagay madaxweyne miyaanu ahayn. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta uu jaray sanaag bari oo Cabdiweli ku hambraysanaya inaguna tukaraqbin difaac kaga jirnaa. dalkeenuna markii hore madaxweynahan ka horeeyay Axmed Maxamuud Siilaanyo wuxuu istaagay isagoon ilu marmaran laas qoray oo ka qodbaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi albaabadii waa inoo soo laabay. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, magaalada Burco.